xuseen aadan ayaa maanta soo kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada laamaha dawladda ee magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen xafiiska cashuuraha bariga gobolka Hawd xarunta kastamka magaalada Balligubadle ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland iyo cisbitaalka guud ee degmada Balligubadle ee gobolka Hawd iyo xarunta caafimaadka daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Balligubadle barasaabka gobolka Hawd Ceeleye Xuseen Aadan ayaa markii uu gaaray xafiiska cashuuraha bariga gobolka Hawd iyo kastamka magaalada Balligubadle waxa halkaasi warbixino kala duwan oo la xiriira hawl maalmeedka shaqo ee xarumahaasi ku siiyay maamulaha xafiiska cashuuraha bariga gobolka Hawd Cabdiraxmaan Axmed Maxamed iyo maamulaha kastamka magaalada Balligubadle ee gobolka Hawd Carafaad Faarax mudane gudoomiye halkan waxa weeyaan xarunta cashuuraha bariga gobolka Hawd horta waa xafiis cusub oo muddo imika laba sano iyo bilaabo shaqeynaya laakiin haddana runtii labada sano xafiisyo 10 sano ku jir soo shaqeynaya baa laga yaabaa inaan ka horumarsanahay ama tusaalaan xagga dardarta shaqada oo kale aan kaga fiicanay ama aan ka horumarnay oo kale xagga daraas ahaan marka eegto xafiiskana wuxuu ka hawlgalaa 4 degmo ee gobolku yahay si fiican buu shaqeeyaa dadka bulshaduna inkastoo markii hore ay de kulli cashuuraha bariga ay ku cusbaayeen oo aanay la qabsanin laakiin haddana imika adoo si fiican baan wallahi uga mahad sheeganaynaa barasaabka gobolka Hawd sidoo kale waxa uu kormeeray qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin cisbitaalka guud ee degmada Balligubadle iyo xarunta caafimaadka daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Balligubadle ee Samawade waxaana halkaasi warbixino ku siiyay agaasimaha cisbitaalka guud ee degmada Balligubadle Dr. Guuleed Baasha Cabdi iyo madaxa xarunta caafimaadka daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Balligubadle Dr. Xuseen Xasan Cali iyo isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Hawd Axmed Cali Dareyse cisbitaalku runtii wuxuu ka kooban yahay tan warbixin koobankaas iyo dhammaan qaybihii kala duwanaa ee loogu talagalay inuu cisbitaal ka koobnaado sida qaybihii qalniinka qaybihii shaybaarka kuwii farmasiiga kuwii bukaan jiifka kuwii dhiig shubista ama blood bank loo yaqaanay qaybtii ilkaha dentalka qaybtii emergency-ga qaybtii caruurta dhammaan wuxuu ka kooban yahay qaybihii oo dhameystiran ee dhakhtarku ka koobnaa kuwaasoon midmid kuu soo tusi doono aad u soo arki doontid markaa waxaa ku leenahay kusoo dhawow insha allah waa kormeerkaagii koobaad aad ku timaado cisbitaalka maanta waxaan rajeynayaa inaanu kaagii ugu dambeeyey aanu noqon ee aad si dhow noola shaqayso insha allah ood uga warhayso cisbitaalka gudoomiye aad bay farxad noogu tahay inaad maanta nagu soo booqato xarunta caafimaadka ee Balligubadle ama Balligubadle MCH xarunta caafimaadka ee Balligubadle waxaa ka shaqeeya 19 qof 6 qof waa midwife 2 qof waa nutritionka 2 qof waa nursing 4 qof waa cleaner 2 qofna waa washman